dacwaadka caalamul islaami ka socda ama muslimiintu wadaan marna waa yara guulaysanayaan marna hoos bay u dhacayaan marna waa yara guulaysanayaan marna hoos bay u dhacayaan maxaa keeni kara inay xoogaystaan kow waxaa keeni kara inay dacwadan in loo qabto ilaahay dartii dadkana ilaahay loogu yeedhay aanad adigu isugu yeedhin dadka in ilaahay loogu yeedho inaad adigu isugu yeedhin ma waxaad rabtaa inaad atbaac yeelato dad badan oo ku raacsisana uu hebel ku haya waxaad doontaba markaa magacaagu aada ama urur sheego ama kan sheego ama kan sheego mise waxaad rabtaa dadku inay rabbigii abuuray ku xidhmaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raacaan asalku dadku waa inaynu ilaahay ugu yeedhno haddaynu rabno inay guulaysato sida awgeed baa ilahay wuxuu leeyahay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi baa la yidhi miman dacaa ila allah dadka meeshaad ugu yeedhaysaa ma aha gruubkaaga inay noqdaan iyo sidaad adigu fakeraysa inay u fakeraan iyo saad wax u aragta inaad kuula arkaan iyo saad wax u qiimaynaysa waxaas waa masalo kale dadka waxa loogu yeedhayaa waxa weeyaan rabbigii abuurtay inay raacaan rabbigii abuurtay inay raacaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allah nabigu muxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa haadihi sabiilii adcuu ila allah ilaahay baan dadka ugu yeedhayaa dhe udcuu ilaa sabiili rabbik ilaahay jidkiisa dadka ugu yeedh jidka rabbi gaadhsiinaya dadka ugu yeedh waxay leenahay dacwadu waxay naajix noqon kartaa kow markay tahay dadka in ilaahay lagu xidho danta aad leedahay markay tahay ma aha inaad magac hesho inaad maamuus hesho inaad xoolo ku hesho inaad koox badan oo adiga kaa dambaysa heshid waxaasi maaha waxaa dhabtahay wax weeyaan dadkan inaad rabbigood bartid ood rabbigood ku xidhin ka labaad waxay leenahay dacwadu waxay naajix noqon kartaa dadka waxaynu ugu yeedhaynaa hadduu innaga inaga muuqdo maxaan uga jeedaa dacwadu inta badan hadal maaha dadku marka dacwo laga hadlayo inta badan waxay moodaan muxaadaro iyo deris la dhigay inay tahay muxaadaro iyo deriska la dhigaa waa wax ka mid ah laakiin wax ka muhiimsan baa jira waxa ugu muhiimsane koowaad waxa weeyaan inaad adigu qudwa noqoto inuu diintu inay adiga kaa muuqato waxaan odhan karaa maanta caalamku wax la loolama islaam oo naflihi ma yaallo laakiin haddana maxaa hortaagan waxaa hortaagan muslimka dhaqan xumada muslimkaa hortaagan soomaalidu maxay idhahdaan riya hadday dib leeyihiin dabadooday ku qarsan lahay bay idhahdaan dee dadku markuu muslimka sidaa u ego wuxuu odhanayaa war hadday naf leedahay iyagaa naf yeelan lahaa socankaa ma aha haddaad tidhaahdo diinta haddaad qaadataan waa la liibaanaya adbaad xagga kale ka wareegayso waa khiyaamada naga daaweeyaan hadday liibaantay ma adigaa ka soo noqon lahaa idan waxaa hortaagan diintu inay socoto dacwada dhabtii waxa weeyaan adigu qof muslima noqotid adiga libaaskaagu maradaad xidhanaysaa inay maro muslimnimadaada tilmaamaysa noqoto adiga dhaqankaagu inuu dhaqan muslimo tilmaamaya noqdo adiga cibaadadaadu inay cibaado islaam tilmaamaysa inay noqoto sida awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa kitaab lama soo dirin oo malaa'ig laynoogu soo dhibo la yidhaha kitaabkaa akhrista ee waxaa la soo diray bashar rusushu bini aadam bay ahaayeen maxaa bini aadam looga dhigay inay noqdaan wax lagu dayan karo inay noqdaan diintiiyoo lagula hoos soconaysa ilaahay wuxuu qur-aan ku tilmaamaya laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan ku dayasho fiican yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun wardadow maxaa ugu dhawaaqaysaan waxaydaan idinba yeelaynin ataamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum dadka masamaha u sheegaysaan oo dabeetana waa maxay adiguna lafahagaad ilaabaysa saxwaadkeenna dambe waxa ku badan dadka kale unu muuqda isagu isuma muuqda hal la iscafiya buu leeyahy isagu midba midbuu ku dhegan yahay
islaamka ha lagu dhaqmo isaguba ku dhaqmi maayo kama muuqato run ha la sheego isagaa markuu doono been sheegaya diinta daacad ha loo noqdo isagaan daacad u ahayn markuu doono idan dhaqankaagu ayaa ka dhawaaq dheer hadalkaaga dhaqankaagabaa ka dhawaaq dheer maxay hadalkaaga hadduu dhaqankaynu dhaqan muslim oo dhaban noqdo taasaa dacwo ku filan iyadaa ah islaamnimada dhabta ah soomaalidu waxay yidhahdaan ninkaad kabaa ka tolanayso kabiisaan leega nin isba kabaalaa kaba ii tol kuma qurux badna idan markaynu leenahay dadka war diinta qaata waa liibaanaysaane innaguna aan wixii segsaagayno wayna si fiican ugu dhaqmaynin aday dhigaysaa mawducu tuhma aday ku dhigaysaa waxaanaad sheegaysa inaad ka run sheegayso iyo inaad daacad ahayn saa daraaddeed dadku ku dhegaysan maayaan waxay kuu dhegaysan la'yiin waxa weeyaan tuhmaday kaa qabaan dadku waxay kuu dhegaysan la'yiin maxay aday ku tuhmsan yihin dacwada naajixa waxaa calaamad u ah bay culammadu yidhaahdaan qofkan diinta sheegaya inuu aakhiro ka doorbidaya adduunka eraygaa u fiirso qofkan raba inuu diinta sheego ee dadka diinta gaadhsiinaya aakhiro inuu ka doorbidayo adduunka oo waa maxay fii suurati shucaraa ilaahay ambiyo badan buu kaga warramaya ambiyada waxa uu nebi waliba odhanaya wamaa as'alukum calayhi min ajr in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin waxba idinkaga dooni maayo dadku hadday u qaataan diinta inaad ku xoogsanayso inaad dantaada ku fushanayso te nin shaqaysanayaa lagu arkaya nin mabaadi' wada lagu arki maayo waxaa lagu arkayaa maxay qof shaqaysanaya haddii inta diinta sheegaysa ay noqoto mid jaamacad macallinka oo mushaahar ku qaadanaya mid masaajid imaamka ah oo mushaahar ku qaadanaya mid malcaamado dhigaya oo mushaahar ku qaadanaya kama hadlayo mushaahar in lagu qaataa ma bannaanta iyo ma baabkaa kama hadlayo dee ilan dadka baktiya odhan mayno haddaan cidbo wax siinaynin waa inay wax cunaanay laakiin waxaan ka hadlayaa tilmaamaya waxa weeyaan mee dadkii diintan intuu iska xilqaamo dadka u sheegi lahaa isagoo wixiisa haysta isagoo aanay dadku u arkaynin inuu ku xoogsanayo waayo haddii bulshadu ay kuu aragto diintan aad wadaa inay kaa tahay mansab raadin iyo xoolo raadin iyo xukum raadin iyo waxaan raadin haddii lagu arko dee nin dad shaqadiisa wataa lagu arkaya laguma arko qof mabaadi xambaarsan ama haddii lagaa dareemo inaanad waxba ka rabin dadka jeebkooda waxa ku jira inaad doonaynin inay ku maamuusaan oo magac ku yeelaan oo hebel ku yidhaahdaan oo fadhiga kaga kacan aad ka rabin inay madax kaa dhigtaan aanaad ka doon waxaad ka rabtaa aanay jirin kelimadaadu mid la maqlaa bay noqonaysaa hadba inta dadku tuhmadooda aad ka fog tahay buu warkaaguna yahay war dadku dhegaysanayaan hadba inta tuhmada dadku ay kugu badan tahayna waxa yaraanaya in wax lagaa dhegaysto in lagu arko qof mabda' xambaarsan inaad tahay baa yaraanaysaa sidaa awgeed dadka diintan sheegaya waa inay noqdaan dad aakhiro iyo waxa ilaahay agtiisa yaalla kala muhiimsan yihiin dadka agtooda waxa yaalloo dhan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam madiine markuu rabay inuu hijroodo waxa u yimi saxaabo reer madiine ah bayca heshiis bay la galeen baycat alcaqaba waxa uu nebigu weydiisanaya calayhi salaatu wasalaam hadduu soo hijroodo inay diintan u difaacayaan siday naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda u difaacaan in loo dhimanayo okay su-aal bay markaa nebiga weydiiyeen haddaanu sidaa yeello maxaanu leenahay haddaad noo timaadid oo aanu ku difaacno oo carab oo dhammi meel qudha nagaga soo wada jeesato oo aanu naf iyo maalba kugu difaacno saanu carruurtayada iyo reeraha iyo xoolahayaga u difaacino kuu difaacno maxaanu annaguna leenahay u fiirsa nebigu muxuu ku yidhi marka aniga dabadaybaa madax noqonaysaan miyuu ku yidhi wasiirraan idinka dhigayaa ma yidhi dowladda dambe ee islaamka ah baa wax ka helaysaan ma ku yidhi maya manfac dunawiya uma sheegin walakum aljanna buu nebigu yidhi sidaa haddaa yeeshaan jannaa helaysaan macnaheedu waa maxay
قفك الدين تن ربين أبدر إنه فافيو إنه هرجليو إنه مبدأ حنبارا وحول رادين يا وين الجنة نغطاه وحول رادين يا وين الجنة نغطاه markaasi mabdaani wuxuu noqonayaa mid dadku ay u arkaan in dantooda ka waramayso ay qaataan laakiin marka ay u arkayaan in dantaadu adiga ku xidhan tahay oo adigu aad manfac ku haysato ama magac ku haysato ama adduun aad ku haysato ma badnaanayso in dadku wax ka dhageystaan saddex waxaan leenahay ama afar dacwada naajixa waxa asal u abay culimadu yiraahdaan oo kamida dadkan ducaadii inay yihiin dad daakiriina dad ilaahay xuskiisa badiya dad ilaahay xuskiisa badiya oo wazaadka ugu fiican ee uu qofku wadada u qaato nabi maxamed ilaahay muxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha almudaththir qum faanzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujsa fahir waxaa la kan istuduubayo kac oo dig قم فأنذر حل وحكس يا مركا وربك فكبر ربك ويني عبادة يسوع يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وكان استوضوب يوم إلهي إليه كان استدى يوم كع هبينكي إن بدن هبينكي إن بدن وكمل كع وايو وقرآن كأخري عبادة ساليني وايو إنا سنلغي عليك قولا ثقيلا والعلص بنكولي بين هير وكان علص وحا حنباري كرا قفك إلهي سفي عنه بحدا هدان كولي أدونها قادني لغونا توم أيام لغا سهر جيسر أيام لغو عدادين أيام لغو عاي أيام لغو دبا يسادو وقت كيسانيسا waxaad u adkaysanaysaa haddaad ilaahay xidhiidhkaagu fiican yahay ilaahay xidhiidhkaad la leedahay hadduu fiican yahay nebi muuse iyo nebi haaruun ilaahay wuxuu uhi fircawn taga idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa weliba waxaa loo sheegay fircawn nin fudud inaanu ahayn nin kibre oo qooqay oo dadka laayabaa la yidhi u taga oo haddaa maxay samaynayaan ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala idhab anta wa akhuuka biaayaati walaa taniya fii dikri اذهبا إلى فرعون إنه طغى ولا تنيا في ذكري أنا حسك يقول هكذا علينا بإلهي أنا أقول حصة إذا هذا ربطين تقول يسطو الدعوة تقول يسطو وين تقف ذاكرة نقطة قف عبادتيس هذا قفك عبادتيس بدنتي هذا الكيس قلبي أقول قليا هديك لنا عقل أقول قليا عقل قدام حسكن نقضى محاضرة ثقافة انت اللي فهمه دهنا هنا تسكت ورطه لكن وحا قلبك قال قفك دقن كيسي بدلا دقن كيسي بدلا وحا فضيدية دين كان إن نددك وشيغنا وحا كمدا إن نددك خيرك الله تعيش نددك إن خيرك الله تعيش قفك أنا عطاقيس يبذليس وحبحنتيس قفك أنا في عينيني دعوتيس أنا ما في عيناته وحبحنت محينه وحبحنت حالك رماها وقتكاغي يا جهدكاغي يا تمرتاغي يا حوقكاغي يا فكركاغي واد بحنيسا ما حاضو بحنيسا ددكات خيرك الله تعيشه قصصك أما قرآن قصور نبي الله نوح وحي إلهي كشيغيو أما النبي يوسف وحلق ورميه أما مؤمن وآل ياسين قرآن وحكك ورميه قصص كاسور لأن هداد أفير ستوحيابه وإذا قام وحكم بدا ضد بيا هاي ضدك خيرك الله جعل نبي نوح اسمه لأنين سقال بقول السنة ضدك الله هندسية كونتوني سكتك أدوغي مسوسنا مركا الله هندسية سكتك إلهي هذا سنة يا لبا يا صدح يا أفر يا شن يا طبعا ودي وعيد بكون دقيسه وإذا ما حد يجي له واركوري خبر ما يقبلني إذا كحيل على الحيط طبعا سنة ضد الود وحنا كمان بلو في سنة بيجا سجال بقول يكونتون سنة ضد ودي سجال بقول يكونتون سنة ضد يقولي بهبين هي مالب ليلا ونهارا هبين هي مالب ودي يقولي بسرا وعلنا
kor iyo hoosba u sheegayay waxay tilmaamaysaa dadku khayrka la rabay, dadku jeclaa inaanay naar ku dhicin. u fiirso nebiyullaahi yuusuf waa la dulmiyey, markaasuu addoon noqday, markaasaa la sii dulmiyey, markaasuu xabsi galay. kuwii xabsiga ku riday baa isaga u baahday oo waxay yidhahdeen riyadii boqorkaa la rabaa in la fasiro. muu odhanin ma inta xabsiga gu rideen baa weliba aniga ileedin wax noo fasir, war naga taga. maxaad adigu odhan lahayd hadduu nin iska kaa xidho oo xabsiga kugu haysto oo hadhowna ku idhaahdo waxtar baanu kaa doonaynayo dowladdeedu sidii ay u badbaadi lahayd noo sheeg. se waxaad odhan lahayd amba 7 sannadood bidca siniin buu xidhnaa nebiyullaahi yuusuf. haddana markii loo yimi wuxuu sheegay 15 sanee soo socda dhaqaalaha waddankaas sidii loo badbaadin lahay oo ummaddaasi u noolaan kari lahayd iyagoo gaala ah buu wuxuu tijaabinayay bal in noloshooda lagu dadaalo oo diin loo sheego oo saasi loo sheego. mu'minu aalu yaasiin ilaahay muxuu kaga warramayaa 3 rasuul meel loo diray oo la soo diiday oo nin muslim oo daaciye maqlo soo cararay oo u yimi. ninkaa xilku qaaday u fiirso, aduu haddii 3 rasuul la diido ma istiri lahayd? se waxaad odhanayd rasuushiiba la aqbali waayo anigu waxaan ka doonaya aw hebel iyo aw hebel baabaa dadku dhegaysan waayeen anigu maxaan sheegayaa? maya, qof walba xilku sidiisa u saaray. iyadoo 3 rasuul la diiday buu yimi isagoo le war hooya rususha raaca, tanbaa isaga uu ah dacwadiisa. waa rususha raaca, cidaan waxba idinka ramin raaca. way diideen, bal ee way dileen, siday culimmadu tilmaamayeen way dileen. dabeetana ilaahay baa u naxariistay oo nicmaa la geliyey. aakhiro markuu u kacay ayuu weli dadkii khayrka la jecel yahay oo muxuu leeyahay ilaahay qur-aanka waa ka tilmaamaya isagoo sii hadlaya. maxaa aayaddu tilmaamaysa? muxuu sheegay? yaa layta qowmi yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii. alla jeclaan lahaayee buu leeyay inay tolkay ogaadaan sida ilaahay igu dembi dhaafay ee uu ii karaameeyey. yacni iyana ha islaamaan oo ilaahay ha karaameeye. isagoo dhintay buu weli dadka khayrka la jeceliyey. idan waxa dacwada dadku ay u akhrinayeen waa maxay? xub الnaasi lilkhayr ama xub اlkhayri linnaas. dadka oo ay khayrka la jecel yihiin. dacwada naajixa waxaa lagu yaqaanaa markaasi in loo sabro oo loo dhabar adaygo oo aan marnaba la quusanin. yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llah lacalakum tuflixuun. yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa wastaciinuu bisabri wasalaa wainaha lakabiira. nusuustaasoo dhamme waxay tilmaamaysaa in loo sabro. inta badan bini aadamku waa indha ku garaadle, wuxuu jecel yahay waxa uu sameeyo natiijadeeda inuu markiiba arko. laakiin dunidan ilaahay baa maamula. wakhtigu wax kasta u qorsheeye u qadarayna way dhacayaan, adigunbaa degdeg kugu jira. intaad dadka diinta ugu yeedho waxaa laga yaabaa inay waxba aqbali waayaan. laakiin waxaa suurtagala midhuhu goortay soo baxayaan adigu garan maysa. mid yaroo adigu aad yeesaysay oo aan kulaba buurayn oo aad qur-aanka u dhigtay oo wax u sheegto iska caruur ahaa aanad u fiirsan inay noqoto ilaahay gacanteeda ku dunida ku badbaadiyo. tusaalayaal basiitaan idin siinaya. shaafici soo imika imaam weyn oo muslim oo dham yaqaano oo diin laga barto oo madhab dhan oo culammadu haysata maaha. ma u malaynaysaa ninkii qur-aanka u dhigaya inuu islahaa shaafici buu noqon doonaa? mise inan yaroo loo keenay oo qur-aanka u dhigayuunbuu arkay. yani ilma caruuro qur-aan u dhigayuunbuu arkay. macallinkii diinta u barayay waxaa laga yaabaa intooda badani markay wax u dhigayeen ila nin bisil markaa ma ahayne waxay u arkayeen qof yaroo muslimo ay wax barayaan. laakiin waxaa laga yaabaa aakhiro inuu uga faa'iido bato dad badan oo kale ay wax u dhigeen oo aan midho ka tegin. kaasi midhihii uu dhalay. waxaa laga yaabaa kaad maanta wax bartay isagoo aan wax badan soo saarin kuu sii baro kiisa shanaad inuu dunida bedelo. adigu ka shanaad siduu u ekaanaya miyaad garanaysa?
meed soranaysa war dadaal kashanaad baa dunida bedeli doonee haddaad sii garanayso inuu kashanaad ama ka lixaad ama ka tobnaad yahay ka dunida bedelaya maanta xoog baad ugu xidhxidhan lahayd ka yaraad wuxuu dhigayso waxaad soran lahayd ha ka habsaamin waa ninkii maxay dunida ilaahay gacantiisa ku bedeli lahaye marka adigu garan maysid sidaa ogeed qofka muslimka ee daaciga ahi waa inuu sabraa natiijadana waa inuu ilaahay u daayaa ilaahay baad ka rajaynaysaa inuu waxaan midho ka dhaliyo aada wado goortu ka dhalan doontana ilaahay baa og sidaa ogeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluh والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والعمل سبيا ما لا يدعى الله يا رسول كي سيادتك مؤمن كارك الدونة وحسب إيسان وحانا دوك سنة تقول إلهي بالغوسو علي الدونة ربنا كاغا ورمي الدونة وحيات سميسين أيها الأحبة واركب بدني واسم الصحة dadkuna maskaxdoodu intay soo jeedaa ma dheera ma badna dii war badan lagu akhriyo inta badan wixii uu qofku sheegayo ma isma saxa laakiin waxaan ku soo koobayaa dacwo markay tahay oo ah in diin la faafiyo qur-aanka iyo xadiidkuba waxay inoo tilmaamayaa mu'minka xil saaran inay tahay mu'minkuna lab iyo dhadig iyo caalim weyn iyo mid in yar garanaya ma kala leh mid walba intuu garanayaa saaran mid waliba diintan wuu faafin karaa qof qurana lama sugo saxaabadu hadday nebiga qura sugayaan ma u malaynaysaa diintu inay intay gaadhi leh maya nin waliba isagaa isxilqaamay nebigu abubakar ba wuxuu sheegay abubakar markuu wax fahmay casharat almubashiriin inta u badan isagaa keenay isagaa isna diinta u sheegay oo nebiga u keenay isma odhan nebigu dadka haw sheegay dee adigu nebiga iska daba socow nebiga sheegi doone laakiin isagaa intuu baxay u soo sheegay oo dabeetana saasay ku yimaadeen oo diinta ku garteen waxaan uga dan leeyahay qof waliba diintan wuu faafin karaa qof wal oo muslimaba diinta wuu faafin karaa kelmadiisu ku faafin karaa dhaqankiisu ku faafin karaa xoolihiisu ku faafin karaa waqtigiisu ku faafin karaa saaxiibtinimadiisu ku faafin karaa asaaliibu dacwa ma aha uun intaad meel fadhiisato in dad laguu soo ururiyo aada muxaadaro u jeediso ama intaad meel fadhiisato inaad kitaab dhigto intaas ma aha dacwadu intaas waa in yaroo ka mid a ee dacwadu waa in diintan la qaado oo dadka la gaadhsiiyo sida dadka loo gaadhsiinayaana waa si aada u tiro badan wasaaishu aad bay u tiro badantay wax kastana way yeelan kartaa marka warkan waxaan ku soo koobayaa mafhuumkan qaldan ee ah anigu kitaab ma akhriyo ama anigu ma muxaadarayn karo dee maxaan markaa diin dad gaadhsiin karaa kaas iska tuura xil isa saar oo garo qof xil saaray oo ilaahay saaray inaad tahay ilaahayna inaad la dhaqmayso aad ajar ka rabtid idan dadka diinta waad gaadhsiin kartaa kuwa dashaad gaadhsiin kartaa kuwa tolka iyo qaraabada lataad gaadhsiin kartaa kuwa jaarka guriga kugu abaad gaadhsiin kartaa kuwa iskuulka iyo jaamacadda ku zumalada tiim baad gaadhsiin kartaa kuwa shaqada wadaagtaan baad gaadhsiin kartaa bini aadamku si badan oo kala gedisan buu xidhiidh u leeyahay oo wax isugu tallaabin karaa dhaqankaaga iyo hantidaada iyo caqligaaga iyo waqtigaaga diintaada wax ka sii صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين